السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلهم وعنا ونكسنا دعوة ديال مر ولي بعد جوكتان كسود واده وركن نجسو جاري ودن كإثيوبيا يجودهنا عالمك قضبة إنه كسو قادرين دونه ديردنا إنه كسار دونه وحكمده وزير هوين كي عرورته فيلسن عبد الله وكمده هيد حكومة أبي أحمد أيها علك إسك عزيزي هل كاني أينو إنه كل وذاك دونا عزيلات دي وحا أي كسر سنيد sidoo kale waxaynu eegi doonaa dagaalada ka dhacay waqooyiga Itoobiya guud ahaan iyo wadanka Itoobiya dagaalada ka socdo qodobadaas iyo kuwa kale ayaynu halkan saaxiibayaal ku faahfaahin doonaa kusoo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan hadii aynu ku bilaabno dagaalada ka socda waqooyiga Itoobiya gaar ahaan gobolka Axmaaradu waxa la soo sheegayaa magaalada Dhisay in ay dagaalo culculus ay ka dhaceen labada dhinac dabcan guule ayay sheeganayaan balse dagaaladii u dambeeyay TPLF ayaa waxay sheegatay in ay deegaano hor leh ay qabsadeen ay haatanba u dhow yihiin in gabi ahaanba ay la wareegaan magaaladaasi deegaanada haatanba lagu dagaalamayo labada dhinac ayaa foodo isku diray 24 saacadood u dambeeyay waxayna sheegayaan in dagaaladii u dambeeyay ay jirto dhimasho aad u fara badan halkaasi ay ku dhamaadeen ciidamo tiro badan oo labada dhinac ba iska laayeen dabcan madaxweynaha Tigreega ayaa waxa uu ku dhawaaqay asagoo ka hadlayay warbaahinta afka Tigreega ku hadasho waxa uu sheegay in ay soo dhiibaan ciidamada militariga Itoobiya iyo sidoo kale Eritrea iyo kuwa huwanta ama gobolada laga soo kala qaaday in ay isku dhiibaan xooga TPLF ee halkaasi kula dagaalamaya wuxuuna u weegyahay warkaasi mid ay dagaaladii u dambeeyay ku gacan sareeyay waxaana sheegay in ay hadhow dambe ay ka shalay doonaan hadii ay haatanba ay soo dhiibin wuxuuna ku sheegay in ciidamada TPLF ay yihiin ciidamo awood u leh in gabi ahaanba ay baabi'in karaan ciidamada ay haatanba u dagaalamaya ayuu yiri dawladda federaalka Itoobiya hadalkaasi ka soo yeeray waxa uu muuqdaa mid ay dagaaladii u dambeeyay aan iraahday ay TPLF ay kusoo bandhigaysay hubab aad u fara badan sidoo kalena maxaabiis ay haatanba ay gacanta ku hayso dabcan warka madaxweynaha ka soo yeeray ayaa ah mid ay gilgilay dhamaan warbaahinta aan iraahday dhamaan waqooyiga Itoobiya isagoo ku sheegay in ay isaga baxaan gobolada ay haatanba kula dirirayaan Axmaaradu sidoo kalena wuxuu baaq fariin ah u diray ciidamada oo si gaar ahaan ah ugu sheegay in ay dagaalkaasi ay isaga laabtaan ama ciidamada Tigreega ay isku dhiibaan hadii ay rabaan in ay nabad ay helaan dabcan waxay u muuqdaa hadalka madaxweynahaasi in uu yahay mid hanjabaad ah oo loogu hanjabayo ciidamada huwanta ee halkaasi ku dagaalamaya dagaaladaasi dabcan u dambeeyay waxa loo adeegsaday labada dhinacba in ay adeegsanayeen bambooyin sidoo kalena taangiyo aad u fara badan oo halkaasi lagu riday dabcan dagaaladii u dambeeyay weeraro fara badan ayay TPLF ku qaadeen ciidamada huwanta ee militariga Itoobiya iyo kuwa kale halkaasi jooga qaar fara badan halkaasi waa ay ku dhaawacmeen inta kalena dhinaca kalena iyaguna waa ay ku dhinteen dabcan dagaaladaasi saaxiibayaal iyaguna waxay ka soo kordho halkan ayaynu idin kula wadaagi doonaa hadii aynu u leexano arinta wasiirka arrimaha haweenka Itoobiya oo ahayd saraakiilkii ugu horeeyay ama sarkaalkii ugu horeeyay ee heer federaal ah oo qirta in uu kufsi ka dhacay gobolka Tigreega xilligii uu dagaalka ka socday ayaa xilkaasi iska cashisay iyagoo ay sheegtay sababta ay uga dagtay xilkaasi xaalad kasta oo wax u dhimaysa anshaxiga waxay lid ku tahay mabda'ayga iyo qiimaynta iyo caqiidooyinkaasina waa jabinta kalsoonida nafteyda iyo muwaadiniinteena ayay fariin ay ku soo dhigtay Twitterka ku tiri Filsan Cabdullaahi Axmed oo ka soo jeeda gobolka Soomaalida sababta shakhsiga aad ugu weyn damiirkayga dartooda waxaana aniga ku faraxsanayn gudbiyay ayay tiri warqadeeda iscasilaada oo u dhaqan galaysa si degdeg ah ayay Filsan Cabdullaahi si raacisay qoraalkeeda Twitterka ay ku soo qortay bishii Febraayo ayay Filsan sheegtay in shaki la'aan ay tahay in kufsi uu dhacay 10 bilood ee uu socday dagaalka gobolka Tigreega ee waqooyiga dagaalkaasi uu dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa jabhada TPLF iyadoo ku dhawaaqday gudiga arintaasi farax
bishii tagtay Filson ayaa wakaalada wararka AFP u sheegtay in warbixinta guddiga loo diray xeer ilaaliyaha guud isla markaana ay u taalo saraakiisha hay'adda fulinta iyo go'aan ka gaaraan xadhiga dambiyada iyo cidda mas'uulka ka ah. waxay intaasi ku dartay in ay rumaysan tahay in saraakiisha sharci fulinta ay sameynayaan intii karaankooda, laakiin ay rajeynayso in shaqadu ay si dhaqso leh ugu sii socon doonto. Filson kama jawaabin codsi loo diray oo ku saabsanaa in ay faahfaahin dheeraad ah ka bixiso iscasiladeeda ayaa timaanaysa ka hor xilliga lagu wado in Abiy Ahmed uu xisbigiisa BBA oo si weyn ugu guuleystay doorashooyinkii dhacay horaantii sanadkani oo uu soo magacaabi doono wasiir cusub. wararkaasi waxay ka soo kordho halkan ayaynu kala wadaagi doonaa saaxiibayaal. haddii aynu u laabano galbeedka gobolka City, xaaladaha laga soo sheegayo waa xaalado degan. ciidamadii huwanta ee ka dagaalamayay jiida hore ee dagaalka waxa uu u qabtay khudbad aad u dheer, taasoo ah isagoo ku dhiirigelinayo in ay dagaalka halkaasi ka sii wadaan. wuxuu kaloo sheegay oo halkaasi warbaahinta kula hadlay in dhulka ay Soomaalidu ay ku dagaalamayso ay leedahay canfarta, qaybaha ay dhulka ay haatanba Soomaalidu iyagoo haysto. wuxuu ku yiri dhulkaasi waxa iskale canfar. wuxuuna sheegay madaxweynuhu in ay dagaal culus ay la geli doonaan ciidamada Soomaalida ee halkaasi ku sugan. warkaasi dabcan iyagu waxa ay sheegayaan ciidamada in ay soo gaarsiiyaan ilaahay madaxweynuhu hoob aad u fara badan, sidoo kale deeqyo kala duwan oo kaga yimaaday dhankaas iyo dawladda dhexe ee Itoobiya. waxaad la socotaan shirkii u dambeeyay ee wada galeen labada dhinac ee maamulada in ay sheegteen dhulka ay haatanba Soomaalidu ku dagaalamayaan canfartu. waxayna dhaheen dhulkaasi gabi ahaanba waxaynu rabnaa in ay nagu soo wareejiyaan Soomaalida dhulkaasi haysata. balse shirkaasi kadib markuu fashilmay waxaad ogeedeen in dawladda dhexe ee Itoobiya ay ku raacday arrinkaasi ka soo yeeray madaxdii dawladda deegaanka canfarta, dhulkaasina ay iyagu leeyihiin. balse shirkaasi waxaa ka soo horjeesaday dawladda deegaanka Soomaalida maamuladii ka socday madaxdii ka socotay. halkaasina waxaa ka dhacay in lagu kala kaco gabi ahaanba shirki. waxay u muuqataa dhulkani haatanba canfarta ay ku dagaalamayso in garab weyn ay ka helayso maamulo kala duwan oo iyagu ku qarash gareynayo, sidoo kalena ay garab weyn ka helayso dawladda dhexe ee Itoobiya. waxayna u muuqataa in Soomaalidu halkaasi uu ka soo socdo in jab weyn uu ka gaaro, maadaama ciidamada ee haatanba ku dagaalamaya fariimaha hore ee dagaalka ee jooga la soo gaarsiinayo hoob aad u fara badan, sidoo kale deeqyo caafimaad oo kala duwan. arrimahaasi dabcan waxay u egyihiin mid cakiran, balse waxaynu ognahay in gabi ahaanba magaalada Garbaciise iyo sidoo kale deegaanada qaar ee hoos imaaday in ay ku sugan yihiin ciidamada liyu booliska. wararkaasi wixii ka soo kordhay saaxiibayaal halkan ayaynu idin kala wadaagi doonaa intaan warkan war la mid ah ku kulmi doono. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.